waxay nagu wareegsanay innakana way ina soo gaareen oo waxyaabo badan bay naga soo gaareen qaraxyada ka dhacaya laascaanood walxihii halkan laga helay ee gabadhii geesiyadda ahayd ay wax ka qabatay waxaan leeyahay dadweynow baraarug badan ha la sameeyo waa laynagu soo maqan yahay mandaqadda duruufaha jirana la mid baan nahay budhcadbadeed argagixiso wax kastaba waa inaan filannaa wayna socdaan dagaallo badan baa laynagula jiraa waxaad maqashaan maalmahan inay ka hadlaan qoloyaha mucaaradku doorashadii bay dawladdu ay rabtaa inay dib u dhigto horta taasi way dhammaatay doorasho waxay ku dhammaatay marka seerfarkaa la saxo maalinta doorashada ay qabtaan komishanku heshiiskii kaasuu ahaa ninkii war damba ka keenaabaa ujeeddo kale leh xukuumaddu waxay sugaysaa maalinta komishanku doorashada qabto maalintaasay geli doonto sheeke maalin cad ku dhammaatay ninka soo celcelinayaa ujeeddo kale leh doorashadii baarlamanku fooddayna soo saartay guurtiga wakhtigeegii isna foodduyna soo saaray deegaankii oo dib loo riixay wuu inoo yaallaa waxyaabaha inaannu ka tashanno aan u baahannahay mustaqbalka waa kuwa oo weliba qabya ay ku jirto labada doorasho ee baarlamanka iyo ka guurtigaba waxaannu ku doorannay sharcigaasi inuu tembarary yaho doorashadii hore keliya ku ekaa in maxaa la yeelayaa la saxabaa loo baahan yahay waxyaabaha noo yaalli waa kuwa laakiin maron ka hadhay doorashada iminka madaxtooyada oo annakii xisbiyaddu dib aan uga maronno ama golayaal ay ka maromaan war muddo dambe guurta ku hadhoo la weydiinayo ma jiro jazaa'ir bariyeer dhaweed laga hadlayo galbeedka oo lalahaa madaxweynaha iibiyo horta jasiirad lama iibiyo dhulna lama iibiyo laakiin waxaan sheegayaa maalgelin haddii lagu samaynayo bad iyo berri iyo meel kastaba xukuumaddaa ka mas-uula suldaanna kama mas-uulaha odayna kama mas-uulaha muwaadin kastoo reer somalilanah way u siman yihiin ka ceelaaya ku dhashay iyo ka looyi cadda ku dhashay hadduu maalgashi ku samaynayo jazaa'irka ah ciddii la timaadda ee shuruudaha maalgashiga buuxisana waa la siinayaa cid la weydiinaayey ma jirto shuruudaha maalgashiga inuu buuxiyo unbaa qofkaa la weydiinaya wax kale oo la weydiinayay ma jirto waad ogeydeen maxjarka iyo dagaaladii xarbulqanamkaan u bixiyey ee wakhtiyadii hore sil soo maray oo ujeeddadiisu ay ahayd inaan u helno maxjar xoolaheenna mar labaad sacuudiga ay dib ugu noqdaan nasiib wanaag ilaahay waad ogeydeen wixii maron iyo jaahwareer ka dhacay xaqa ilaahay uu taageeraa xaqii u yimid maxjarkiina waa kaa furmay xoolo aan caafimaad qabin waa amar baan ka bixiyey inayna ka dhoofin berbera waxaan leeyahay maxjar waa kaasuu inoo furmay cid carqalad ku samaysoo laga aqbalayoo dambina ma jirtee maxjarkaasuu ahaanayaa maxjar kale oo la samaynayana ma jiro dagaallo badan baa laynagula jira qaar baa raba maxjarkeennu inu xidhno taa guurtiga laga dhigtay shaqada waxaan leeyahay guurtigu waa golaheennii qiimaha lahaa waxaan u soo jeedinaa inay heshiiyaan shirguddoonkuna inay iyaku gudahooga horta heshiiyaan golahooga kalena heshiisiyaan nimanka dheeraadka noqdayna dee sharcigooga hoosaadkooga inay ku maamulaan ee waxaanan loo baahnayn golaha iyo suuqa ka sii daynaya kuwaana waxa weeyaan dee xeer hoosaad bay leeyihin annagu faragelin mayno xukuumad xaashaa lillah ma faragelinayno waa saaxiibbadayda qurbaha wareega awla qurba joogga ahaa ee kursiganna u tartamaya waxaan leeyahay bal somalilan kelmad dacwad daahirayaale iyo xukuumadda aan ahayn ood somalilan dadka uga iibiseen miidhiyaha aad ku hadlaysaan ha ka soo baxo maalinuun intaa garashadeeda inay yeeshaan baan hawada u marinayaa dee waxaaban maqlaayay in la lahaa meel laga waraystay axmed siiraanyo inuu lahaa anigu federaal baaban aaminsanaa qoraal baan ka qoraya dadkuun baan joojin kari waayo naqas waan joogay dee 91kii waa run waa calaamad su'aal dee ilaa imika wuxuu aaminsan yahay isagii iyay u taallaa anugu dibadda markaan tago waxaan idhahaa xisbiyo iska ilaaba annakaa gudaha joogna intayada goodada joogtaa ku filan idinku waxaad noqotaan danta somalilan oo midooba saaxiibbadayna tu ka duwan bay dhaha kala qayqaybin iyo kala qoqob ooy dibadda la wareegaan iyo ka laftigooga waxaan leeyahay hadday tagaan ama hala kulmaan maaragtaanay nin kongaraysa ama cid kaleba hala kulmaanay waxaan u jeedin lahaa bal inay somalilan ka iibiyaan inay waddan fiican tahay madaxweynaha iyo dalku ha israacaan hadday taladu noqoto somalilan ta anigu horta maleeyahay madaxweynaha ka ahay berri ka maalina cid kale inay madaxweyne ka noqotaa laga yaabaa waxaan jeclaan lahaa inay aniga dalka la kala hadhaan laakiin ma muuqato taasi